والله runtii mashruucan waa mashruuc weyn oo muddaaba dawladda Puntland ay ka fakaraysay sidii ay biyaha xaafuun oo ah dhibaato weyn ay ka haysay dadka iyo dunyada iyo deegaanka waxa ku nool oo dhan la socodna xaafuun waa meel jasiirada in biyo laga helana way adkeyd oo biyaha laga helay biyo milix ah ay hayeen marka mashruucan in badan baa dawladda Puntland ka fakaraysay haddana waxay noqotay in qorshuhu in biyo macaaneyn loo sameeyo oo warshad loo hindiso in loo helo warshad biyaha badda macaaneysa mashruucaasi yaa maalgelinaya mashruuca walaal waxa maalgelinaysa hay'adda soo maraya waxana maalgelinaysa Netherlands dawladda Netherlands ma holan qarashkiisu aad u badan yahay laakiin qarashka marka hore uu badan yahay laakiin muhiimadda ka fiican waxay tahay shada waxa loogu talagalay in 5 sano oo hore aan wax aysan u baahan laga bedelayo ama maaragtay qaabka loo isticmaalayo qaab money wala oo ah u sahlaya in bulshadu maaragtay ay adeegsan karto oo iyaga lagu tababari karo dadka deegaanka isla markaasna 5 sano kadibna loo keeno spare parts-kiisa ula socdo 5 sano kadibna wixii laga bedeli karo oo maaragtay u baahdana in maaragtay iyadana in soo raacinayo halka waxa marka ah in 10 sano la isticmaali karo warshadaas biyaha macaaneynaysa marka warshadaasi wax qalab iyo wax ay ka u baahnay marka warshadaasi biyaha ay soo saari karto maalintii intee dhan yihiin qiyaas ahaan walaal biyaha ay soo saarayso waxa weeye 44,000 oo litir baa hadda talagalka hadda waxa weeye 44,000 oo litir oo u dhiganta 220 kiilo oo biyaha xaafuun inkastoo jasiirada ay ku taalo meelaha biyaha milixda ama dhanaanka ah ay ka jiraan ma ahan oo kaliya marka iyagu maxaa lagu doortay waxa lagu doortay hadda meelaha Puntland marka la eego waa meel shakaliyo oo jasiirad ah oo lagu nool yahay baahida xagga biyahana meelaha kale in xeelad loo qabo iyo waxyaalo kale oo lagu deegi karaa oo lagu sahli karaa in biyaha dhulka oo maartay laga helo waxaan ugu talagaleynaa inay u noqoto saale weyn isku xigaan oo meelo badan oo aankee dhulka aan badaha ahayn oo biyaha iyo ruuxda adag yihiin baan rabnaa insha Allah inaan destination wad inaan ku sameeyo biyo macaaneynta dadka halkaasi degan qaabkee marka la doonayo in biyaha lagu gaarsiiyo ma biyo gelin ayaa loo sameeynaya mise biyaha hal meel ay warshada ku sameynaysaa dadka iyaga biyihii soo doonanaya walaal biyaha waxa weeye waxa lagu gaarsiinayaa biyuhu marka hore waxa weeye markii badda la macaaneeyo waxa la sameynayaa haan lagu shubo biyaha oo kayd ah haanta kaydka ayaa kadib waxa loo qaybinayaa magaalada oo dhan waxaana la gelinayaa macal guryaha iyo MCH iyo iskuulka iyo meelaha public oo dhan waa la gelinayaa dadkana guri kasta waa la gelinayaa sidii maartay ay u helaan biyo nadiif ah oo ay uga maarmaan hadda meesha hadda isticmaalayaan in booyad iyo adeegsadaan jirgaamo marka biyahaasi ma lacag ay ku gadanayaan mise waa bilaash oo dadka meesha degan lacag laan ay ku helayaan markii warshadaas la keeno runtii waxa aan ka taxadirnay in motor iyo kharash meesha uu ka baxo waxa lagu sameeyaa biyo ka soo baxayaan qaab solar ah marka lacagta waa qaab free ah bay noqon doonaan insha Allah wax aan badnayn oo aan macna lahayn baa la saaraya laakiin waxaas wuxuu noqon doonaa wax dadka gacanta ku haya oo maaragtay ka shaqeynaya oo kale iyo wax taas waxaan weynayn bay noqonaysaa laakiin wax la oran karo waa free warshada marka yaa gacanta ku haynaysa farsamo ay u baahan tahay yaa gacanta ku haynaya ma dadka deegaanka mise Puntland dawladda Puntland baa gacanta ku haynaysa sida la socodsiina dawladda Puntland waa nidaam kala sareeyo oo maamul leh degmadu maamul bay leedahay heer degmo shaqaalaha baa jiraya marka dawladda Puntland baa guud ahaan u maamulaysa shacab marka ka waran wacyiga dadka in laga dhaadhiciyo biyihii dhanada ahaa ayaa macaan loo bedelayaa arinta dadka ma loo sheegay suurtagalnimadeeda iyo waxay fahansan yihiin miya mise wax iska keenaysaan oo la leeyahay hadhow biyahan caba horta baahida ugu weyn meesha ka jirta waxay ahayd biyo la'aanta iyo dhibta ay ka haysato iyo meelaha ay biyaha ka keensan jireen hadda waxa weeye halka fuusto oo biyaha macaana waxa la $7 ee deegaanka dadka deegaanka ku cabaan marka way la socdaan wayna ku wacyigelsan yihiin 100% baahida biyaha waana lagu wacyigeliyay waan loo sharaxay in maartay badda ay kulug kala soo bixi jireen in maanta biyaha loo macaaneynayo oo aysan ba maartay u tahay wax maartay si farsamo lagu gaaray oo hadhoona lagu tababari doono oo maartay ay jirayso muddo gacanta tababar lagu siinayo cid markaas gacanta loo gelin